nin wadaada beri wuxuu guursaday qiso aan maqlay oo kollay beledkeenna kama dhicin ee markiisa beledada kale ka dhacday gabadh buu guursaday kiristaana oo ka helay gabadhii markuu guursaday 3 carruur ay u dhashay geeri degdega ku timi de markuu ninkii dhintay kiniisadda geysay 3 carruuraba fayaa laha min khasaara ubadka fawaaidda laga rabo waxa kamida inuu qofkii markiisa waxaan yani u soo duceeyaan yani aakhiro la soo shafaaco qaado sadaqad u soo bixiyaan dee haddayba gaaloobaan oo milladii iyo diinkiiba ka tagaan alla waxaad markiisa markaa ka helaysaa ma jirto ya khasaara saas aawadeed ku talin maayo inay gursataan haba bannaanaato ayna ku dadaashaan gabadh muslimada inay gursataan xataa kuma talinayo gabadh ajnabiyada inay gursataan ya maay marooka qabanina ya loo baahna marooka in loo kaco xaliimooyinkan guursada dumarka ajnabiyaadka ku talin maayo wakadalika dumarkana kula talin maayo ragga ajaanibta inay guursadaan ku talin maayo sababtu maxay tahay waxaan ugu talinayn dhaqamada kala duwan dadku waxay leeyihiin acraaf iyo dhaqamo dhaqamadu markay kala duwan yihiin waxa ka iman kara isfaham la'aan waxa ka iman kara yani dadka qaarkood inay ka diiqadoodaan ashyaada qaarkood oo qofka kale ay dib ula muuqan way dhaqankiiba kala duwan qof baa laga yaabaa waxa inaan dib u arkayn curfigiisa iyo caadadiisa siduu ku yaqaano qof kalena agtiisa waxay ka tahay yani tan noocaasi midaan munaasib ahay in lala yimaado waxaa ka iman kara halkaas isku dhac waxaa ka iman kara burbur ayaa ka iman kara calaa sabiil misaal inan degaanadan ah eeryadan dadka dega ka mid ah ka soo jeeda ayaa wuxuu guursaday gabadh shinqiidyada wuxuu sidii cilmiga dawaata lagu sheego oo markaysaa markaa dee ubadka waxaa ku bartee in Mauritania ah oo markaysaa markaa shanaaqidadooda waa dad xifdi badan waa dad dadaal badan cilmiga lagu soo barbaariyo walow markaysaa markaa xagga ictiqaadka tamashcur iyo tasawuf baha jiro waxa uu qaaliba beledkaas madhab al-ashaacira xagga caqiidada xagga kalena tasawufka u qaaliba inay suufiye yihiin way jiraan dad markaysaa markaa labadaba ka maran laakiin way yar yihiin waa qilla asima al-ghaaliba lilbalad Mauritania markaad joogto waxa weeye caqiidada waa madhab al-ashaacira xagga kalena waxa weeye waa suufiyo mashaayikhda qaarkood oo la majeerto waxaa laga yaabaa oo dadka qaarkood ay majeertaan inuu yahay ashcari suufi ah ya marka inankii wuxuu guursaday gabadh markaa beledkaas ah markuu guursaday wuxuu doonayey hablaha Soomaaliyeed siday u shaqeeyaan oo kale u adeegaan nadaafadda adeega yani dharka inay markiisa maydhaan inay kaawiyadeeyaan guriga inay hagaajiyaan raashinka inay kariyaan ashyaada noocaas oo dhan inay markii dee qabato waxay timaa khuliqtu lihaada taa layma abuurin madhab al-maalikiya waxay qabaan laysa cala nisaa'i khidma dumarku inay shaqeeyaan ma saara dee waxay noqotay anigu ku shaqayn maayo aniga maxaad ii guursatay inaad khaadimad ku noqdo khaadima ya dee waxay noqotay inuu iska furo ya iskama kaalay beledkaas waa fogiyeen sacuudigaa dhowey hadda markaa dee baddu inoo dhaxayso caadada markaysaa beledku waxay tahay dumarku waxba raashinka inayna karin ninku isagaa shaqo tegaya oo soo shaqaynaya sida qaalibka ah raashinkana hodheelka ka soo qaadaya isagaa raashinkiisida ya ha isagoo bisilha hadda maarata nin baa wuxuu guursaday Soomaali ah gabadh markaa waxaa weeye dee Soomaali ka soo jeeda laakiin beledkaa ku dhalatay oo dadkeedu wakhti qadiima meesha ay galeen iyaduna ku dhalato ku kortay inuu Soomaaliya arag balgayba dee khidmadii markaa waxa loo baahnaa waa laga waayay waxay tilmaaniga inaad khaadimad noqdo badii guursatay mise inaad ugu raaxaysatay guursatay ya waxay noqotay inuu sii daayo wadadna kuwii khidmada ku raalida ahaa ya ilaahay noo sakhiray u soo doonto war ma fahanteen halka midin dhacday mid labaad aynu ku daro waxa kale oo jirta gabadha Soomaaliyeed hadiiba aad kala tagtaan ubadkaasi ka lumi maayo waxaad ku baadi doontaa taqaanaa meesha laga helo reerkooda waalidadeed caaqilkeeda yani deegaankeeda yani waxa weeyaan ubadkaasi waa ubad markiisa markaa yani aad garanayso meel aad u raacdo aad soo heliso laakiin maqribiyad haddaad guursato marookaan xagad u raaci waaba kala tagteen maxaad ku baadi dooni maxaad ku raaci qolyahooda ma kala taqaanid deegaanadooda ma kala taqaanid meel ay dhulka ka gashay ma ogid xagad u raaci maxayse ku dambayn doonaan ubadkaas dad kale ay biirinayaan dad kale ay biirinayaan wakadalika hablaha Soomaaliyeed kula talin maayo ragga ajaanibta inay guursadaan
ama ha ahaadeen raggaasi markaa qaar muslimiin ahaan jiray mudulqidam ama ha ahaadeen qaar dhowaan soo islaamay weliba waxaa sii daran kuwa dhowaan soo islaamay maaha qofka haddii la yahay wuu islaamay ilaaba ilaa inuu wada xariir noqday weelka marka uskaga laga qobo diniin baa ku hadhan soo ma uskagii baad saa uga qubtay haddaad yaro dhigto hoosta maxay isugu tegaya in yaro uskaga soo ma markuu islaamo ma aha ilaaba ilaa inuu wada mudh iyo gacan noqday waxaa dhici karta dhaqamo xun inuu waagii hore lahaa waxaas waxaa laga yaabaa inay ku soo neefaan adif ilaa daalika curfiga iyo caadooyinka oo kala duwan hadda marag curfigii caadaadkii waa kala duwan yihin markaa saas aawadeed waa in aad la ysaga jiraa waxaa dhacday qiso cibra ku sugan tahay inan soomaaliyada oo markaa aad u fiicnayd baa la yidhi baa nin cad baa caashaqay oo gaal ah markaasaa wuxuu ogaaday intuu gaal yahay wax alla waxay ka aqbalaysaa inaanu jirin markaasuu waan islaamay waa ashaahatay reerkii buu u yimi waa la soo dhoweeyey alla wuu islaamay waa caynkan waa sidan inantii baa deed markaysaa waa yeeshay waa la siiyey markuu ka danaystay ayuu markaa waxaa weeye salaaddii ku kari weydiyey kadibna wuxuu hi anigu maba aaminsanaynba aduun baan kugu degaye dhabba igama ahayn islaamnimadaan sheegayey ka warran sadma inantiina cawar ka warran soo khatarteeda ma leh ti markaasay ka soo firdhatay ya markaa dhibaatooyin badan bay leedahay dadka yacni iscaado garanaya ee isku beledka ah ayaa markaa fiican inay kala guursadaan taa waa fahamtay maan filaya xagga maroko uma socotaan haddaba soma ta kale hadday maroko qabataan hablihiinna waa guur beeraya ya halka ma in guumuhu fara bataan baad doonaysaan guunta ma taqaanin alcunuusa war guun ma garanaysaan ya markaa dee waxaa weeye waxay noqonaysaa haddii la yidhahdo halkaasaa marka waxaa loo yaacaya oo jabnaan iyo markaysa waxaan yani midabka caduna eegto waxay noqonaysaa kuwanna inay guur beelaan marka xaggaana dhibaato kale ka leedahay waaya